بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ومركل iyo barnaamijkeena xokororsi gaar ahaan qaybtiisa oo koobida iyo qorfeynta buugaagta maanta waxaynu faaleyn doonaa buug la yiraahdo Strategic Interests of Turkey's Foreign Policy in Somalia buug wuxuu ku qoran yahay luqadda Ingiriiska waa buug lagu diyaariyay shahaadada sare ee masterta waxa qoray buuga عمر يوسف عبد الله وهويل سوماليات isla markaana ku diyaariyay shahaadadiisa sare ee masterta isagoo waqtigaasi wax ka baranayay dalka Turkiga buuga ladkiisu waxa uu yahay danaha istiraatiijiyadeed arrimaha dibadda dalka Turkiga ay ka leedahay Soomaaliya hab cilmi baariseed buugu qoran yahay waa buug aad u kooban oo 8 boga waraaqada F4 wuxuu ka warramayaa qoraagu istiraatiijiyadda daneed ee dalka Turkiga uu leeyahay dalka Soomaaliya arintaasi oo markaa uu doodiisa qoraagu ka dhiibanayo wax hore looga yeedhnay inuu isku dayo wax ka duwan inuu keeno qoraagu ayuu buugu ku saleysan yahay qoraagu saddex qaybood ayuu buuga u qaybinayaa waxaan isku dayi doonaa markaa bal si kooban inaynu buuga u tilmaanno iyo waxyaabaha uu ka warramayo iyo qoraagu doodiisa waxa uu ka dhiibanayo iyo waxa uu ku difaacayo iyo arrintu sida noqonayso si kooban inaan tilmaamo ayaan jeclahay marka koowaad dalka Turkigu waxa jirta markaa wixii ka horeeyay intii uu midowgii Sovieti una dhamaanin dagaalkii qaboobay adduunku wuxuu lahaan jiray siyaasadda arrimaha dibadda waxay la xiriirsaneed ku tacalluqday wadamada galbeedka ama galbeedka ay la xiriirsaneed haday tahay markaasi kuwa UN-ta iyo midowgii Sovieti iyo waxyaabaha markaa Mareykanka iyo adoo dadka reer galbeedka iyo kuwa la midka ay xiriir la lahayd intii ka horeysay inta ayna burburin midowgii Sovieti iyo dagaalkii qaboobay adduunka oo dhamaanin markii dagaalkii qaboobay adduunku dhamaaday wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalku sida qoraaguna xusayo ma aha kuwa meel iska jooga laakiin waa kuwa kolba ku saleysan danaha iyo ujeedada uu leeyahay dalku inuu ka gaaro dalalka kale ee markaa caalamka Turkigu wixii ka dambeeyay markaa dagaalka qaboobay adduunku markii uu dhamaaday ayuu isku dayay wasaaradiisii arrimaha dibadda ama siyaasadiisii arrimaha dibadda inuu ka jeediyo wadamadii reer galbeedka oo bal eego dhinacan iyo bariga dhexe Afrika wadamadii Balkans isku oran jiray inuu bal arrimaha u jeediyo isku dayay deedna markaa meelaha uu soo abaaray waxa kamida Afrika markii uu yimiday si gaar ah wax xudun ugu noqotay dalka Turkiga dalka Soomaaliya oo yimiday waqtigaana muddo fara badan markaa wax uu ka qabanayo hadaynu markaa si kooban bal u xusno intaan dooda dhex gelin Turkigu waxyaabaha uu Soomaaliya ka fushaday ama uu qabtay waxa kamida dhinaca waxbarashada dalka Turkigu saameyn ku leeyahay Soomaaliya oo waxa uga furan dugsiyo waxbarasho dugsiyo farsamo ee magaalooyinka kala duwan ee Soomaalida uga furan ama dalka Soomaaliya sidoo kale dhinaca markaynu eegno caafimaadka wax far badan uu dalka ka qabtay Turkigu haday tahay dhakhtar u dhisay haday tahay dadka uu tababaray haday tahay markaa waxyaabo kale uu ku soo kordhiyay caafimaadka arrimo badan uu ka qabtay ta kale uu ka qabtay waxa kamida arrimaha ciidanka markaynu eegno dalka Soomaaliya waxyaabo fara badan uu ka geystay dalka Turkigu haday noqoto tahay ciidamo uu tababaro haday tahay markaa kuwa dalkiisa oo halkan yimaada iyo haday tahay markaa kuwa wasaad iyo waxyaabo la mid ah siiyo waxyaabo kale oo ka qabtay waxa kamida dhinaca dawladnimada iyo goobaha dawladda waxyaabo badan oo iyagana ka taageeray tahay dhinaca shaqaalaha haday tahay dhinaca iyagana tiknoolajiyada haday tahay dhinaca farsamada technicalka waxyaabo badan markaa ka taageeray dhinacaasina waxyaabaha kale oo ka taageeray waxa kamida Soomaaliya dalka Turkigu dhinaca amaanka waxyaabaha laga xusi karo waxa kamida sidii al-shabaab dalka looga dajin lahaa sidii al-shabaab loo dagaalami lahaa iyo sidoo kale inuu Soomaaliya iyo Somaliland u qabto wada hadallo taasina kamid ah qoraagana uu xusayo dhinaca amaanka oo dhowr jeer kala duwan magaalada Ankara iyo magaalada Istanbul waxa lagu qabtay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya taasina waxa ka dhigan tahay Turkigu waxyaabaha uu dhinaca amaanka Soomaaliya ka caawiyay bay kamid tahay inta marka laga yimaado waxa isweydiin mudan dalka Soomaaliya waxa aynu sheegnay Turkigu muxuu uga qabtaa halkaas ayay su'aashu ka bilaabmaysaa lagu kala duwan yahay haddii soo qaadano qoraaguna uu tilmaamaya qoraagu dood wuxuu qabaa markaa isaga u gaar oo isagu soo dhiriyay laba doodood ka horeeyna markaa uu sheegaya laba doodood ka horeeyay waxa weeye
waxa la aaminsan yahay waxaasoo dhan dalka Turkigu wuxuu ugu qabanayaa Soomaaliya si uu u soo celiyo xiriiradii ka dhaxeeyay isaga iyo Soomaaliya waxa jirtay markaa dawladda Cuthmaaniyiinta ee Turkigu boqortooyadii Turkiga dalka Soomaaliya in far badan bay waqtiyadii hore la isku jiray ka joogtay isticmaalka iyo intii markaa ka horeysay xiriir wanaagsan markaa lahaayeen meelaha ay joogto waxa kamid ah Muqdisho iyo Zaylac iyo magaalooyinka kala duwan bay dawladda Cuthmaaniyiintu markaa joogtay xiriir wanaagsan way lahaayeen marka dad ba waxay ku doodayaan Soomaaliya Turkigu wuxuu waxa ugu qabanayaa inuu soo sheegno adeegyada kala duwan waa in uu wuxuu doonayaa inuu soo celiyo xeedhada hore ee taariikheed oo la lahaa dalka inuu soo celiyo ayuu rabaa doodaasi aqoon-yahano fara badan baa qabo qaar Soomaaliyiin qaar kale iyagu Turkiyiin dad ku duwan baa qaba dadka qabo waxa kamid Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo Dr. kale yiraahdo oo aqoon-yahan Soomaaliyeed buu kala duwan markaa qoray ayaa doodaasi qaba dooda labaad waxay tahay waa xaweeye arrimo wuxuu ka caawinayaa gurmada ama arrimo bini'aadanimo daraadeed ayuu Turkigu waxa uu siiyaa way doodaasi markaa waxay soo bilaabantay oo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay qabaan wixii ka dambeeyay 2011 markii dalka Turkigu caawiyay Soomaaliya ee abaarta xun ka dhacday ra'iisul wasaare xilligaasi haddana madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan uu yidhi Soomaaliya markaa Soomaalida wax badan u qabtay ilaa malaayiin dollar la siiyay dadka ganacsatada Turkiga iyo dadka dawladda Turkiga markaa isla qaantayba marka waxa la aaminsan yahay dad fara badan qabaan wuxuu caawinayaa waa arrin bini'aadanimo ama waa arrimo markaa humanitarian aid wax loo yaqaan markaa weey doodaasi waa dood jirtay iyaduna saacadana ku sii jirtay inta markaanu ka nimaado dooda qoraaga inuu nimaado dooda qoraaga waxay tahay labada arrimood waa arrimo macquul oo jira weey laakiin qoraaga waxaan qabaa buu leeyahay Turkigu Soomaaliya uma caawinayo arrimo dana uma caawinayo humanitarian aid ama gurmad bini'aadanimo sidoo kale ma jiraan waxyaabo uu soo celinayo oo taariikh hore inay jiraan ma qabo dooda aan qabaa waxa weeye in Turkigu uu ka leeyahay Soomaaliya arrimo istiraatiijiyadeysan oo qorshayaal markaa istiraatiijiyo goobta ku saleysan inay jiraan ayay markaa qoraaga uu leeyahay doodaas buuga xagga dambe oo ku saleenaya waynu isleegi doonaa wax noqonayso doodo arrinta suudinta badan waxay tahay Soomaaliya maxaa cadeynaya markaa in Afrikada kale oo Turkigu inta badan uga dhaweysto ama iyaga wax badan u qabto dhowr qodob baa cadeynaya dhowr qodob qoraagu uu tilmaamaya waxa weeye kow marka koowaad Turkigu wuxuu ka furtay Soomaaliya safaaradii ugu weyn Afrika ayuu ka furtay 2012 markaa la daafuray waana safaarad aad u weyn Turkigu ilaa hadda uu ku xiran yahay xiriiradii waxyaabihii sii kordhisay safaaradaha Afrika ugu waaweyn markaa ku jirta iyo caalamka laba waxa cadeynaya Soomaaliya meesha ay ku taalo waxay ku taalaa meel istiraatiiji oo ku haboon ganacsiga hadii la eego markaa Turkigu wuxuu doonayaa inuu alaabtii soo saaro ee dalkiisu production-ka ugu ah inuu meel u iibgeeyo Afrika suuq noqota meesha suuq oo noqon karta ugu wanaagsan markaa waxa weeye Soomaaliya oo meesha ay ku taalaa markaa iyadoo isku xidha laba qaaradood kala duwan Afrika iyo Asia iyo xagga bariga iyo xagga galbeedka qaaradaha kala duwan markaa iyadoo isku xidha arinta kale ku xigto waxa markaa arrimo istiraatiijiyadeed oo waxa jira Soomaaliya Turkigu markaa uu ka leeyahay la markaa ku xig waxa weeyaan dhinaca dhaqaalaha hadaynu eegno Soomaaliya sanadii u dambeysay UN sheegtay dhaqaalaygu soo kobcaya at same time Turkiguna markaa wuxuu arkay fursad dhaqaale dalkaasi markaa kula xidid karo ama wax ka faa'iideysan karo ama markaa ugu soo dhawaan karo waa markaa arrimaha oo aynu oran karno Afrika markaa ugu dhaweysanaya hadaynu Afrika u soo laabano Afrika si guud waxa la yiraahdaa wuxuu yimid Turkigu ama qorshe ka yeeshay sanadkii 1998 waxa jiray qorshe la yiraahdo African Action Plan oo uu Turkigu dejiyay oo wadamada Afrikaanka si guud ula galay qodob ayaa markaa jiray lagu heshiiyay qodobada waxa kamid ah dhinaca isdhexgalka iyo dhaqanada kala duwan ee Afrikaanka iyo wadanka Turkiga la xoojiyo oo la sameeyo haday ay tahay markaa meel kala duwan oo lagu barto dhaqanka Soomaaliya dhaqanka waxaan jeedaa Afrikaanka oo Turkiga ku yaala African Studies-ga iyo dadka Afrikaanka iyo waxyaabaha markaa ay leeyihiin in la sameeyo number 2 in Turkigu ku yeesho matalaad ururada jira ka jira Afrika haday yihiin kuwa ganacsiga haday yihiin kuwa dhaqaalaha haday yihiin markaa African Union-ka adoo kuwa kala duwan Turkigu inuu matalaad ku yeesho iyadoo waa arinta kale markaa waqtiyada la dejiyay weeye waxa kale la dejiyay dhinaca waxbarashada in la xoojiyo labada dal iska kaashadaan waxa kale la xoojiyay xiriirada siyaasadda Turkiga iyo Afrika in la xoojiyo waxa kale la xoojiyay dhinaca ganacsiga waxyaabaha la midka waqtiga la galay waxa 1998 qoraaguna markaa uu tilmaamaya doodan xagga hore kaga soo celinaya
waxayadna lagu soo laabtay oo dooda hore ee leeydi waxa lagu heshiiyay Afrikaanka iyo heshiiyeen iyo Turkigu ma la fuliyay mise lama fulin sanadkii 2005 waxay ahayd waqtiyadii marka Afrika uu caadi u soo galay in la fuliyo waxyaabihii lagu heshiiyay waqtigaasi oo la isku dayay marka in xagga hore wax kasto marka la isku waafaqay in xagga hore la fuliyo waqtiga la yimid waxa kamid ah marka safarada inuu ka furto inuu xeedradii soo celiyo in waxyaabo kala duwan marka hadda jiriba la sameeyay ayaa kamid ahayd markaasi marka inta laga yimaado Turkigu Afrika wuxuu inta ula sameeyay waxa weeye saddex qodob ugu muhiimsan saddex qodob waxa weeye Turkigu taariikh hore oo madow oo Afrikaanka gumaysiga lama lahayn oo wadamadii Yurubiyaanka ama wadamadii Asia gumaystay kama mid ahayn Afrika qodobka labaad waqtiyadii Afrika ay ku jirtay gumaystaha Turkigu caawinayay wuxuu isku dayay markaasi inuu caawiyo wadamo kala duwan lambar saddex Turkigu wuxuu la lahaa arimo taariikheed buu la lahaa dalalka Afrikaanka haday tahay marka kuwo dhinaca Uthmaaniyiinta iyo haday tahay kuwo kale wuxuu la lahaa marka kulamo taariikheed buu la lahaa kuwa Uthmaaniyiinta kala duwan ka xusi karno ayaa kamid ah marka taariikh weyn bay Afrika iyo lahaayeen iyo Turkishtu arimaha marka Soomaaliya xudunta ugu noqotay ayaynu marka ku soo laabanana dooda qoraagu waxay tahay Turkigu Soomaaliya waxa uu kale yahay dano istiraatiijiyeedna saddex qodob qoraagu kala qaaday lambar 1 waxa weeye markaynu eegno dhinaca istiraatiijiyadda Soomaaliya barta ay ku taalo Soomaaliya dhinaca istiraatiijiyadda waxay ku taalaa labada badood ee ugu waaweyn caalamka ee badda Hindiya iyo badda kale iyadana badda cas ayaa ku ag yaala oo marka xuduud la leedahay waxa kale ay ku ag taalaa Baabul Mandab oo meeshii marka ganacsiga caalamku ugu xoog weynaya waxa kale xiriir la leedahay aad ugu dhowday jaar la tahay wadamadii bariga Afrika waxaan jeedaa bariga Afrika dhinacii kala duwanay marka xagan xigay waxa kale xiriir la leedahay wadamadii la oran jiray iyagana marka bariga dhexe waxa xiriir la leedahay markaasi wadamo kala duwan marka xiriir ganacsi ka dhaxeeyo marka wuxuu leeyahay qoraagu meesha ay ku taalo Soomaaliya waa meel la isku haleyn karo istiraatiijiyadna laga xaalxaaran karo wadanka u yimaadana marka uu ku qadin marka doodan qaba waxa weeye qoraagu leeyahay Soomaaliya dalka Turkigu kama laha arimo humanitarian ama arimo gargaara sidoo kale arimo xiriir soo celinaya ma jirto laakiin doodaydu waxay tahay waa arimo istiraatiijiyadeed oo marka dalku doonayo inuu xiriirkiisa si kala duwan marka uu ku baacsado waxna uu kaga qabto lambar 2 dana uu kale yahay dana dhaqaale waxa kamid ah dalka Turkigu kale yahay Soomaaliya waxa kamid tahay meelaha wax soo saarka badan haday tahay muuska haday tahay beeraha haday tahay kalluunka haday tahay kheyraadka yani waxa kamid tahay meelaha wax badan yaalaan marka in badan aan la isku dayin in la soo laga faa'iideysto laakiin wax yaalaan Turkigu marka wuxuu doonayaa arimaha noocaas inuu saami ku yeesho ama qayb noociisna marka uu ka qaato arimo dhaqaale marka isagana uu noqon kartaa lambar 3 qoraagu wuxuu qabaa arrimaha istiraatiijiyadeed oo Turkigu ka leeyahay dalka Soomaaliya waxa ay yihiin markaynu eegno arrimaha ammaanka weyn arrimaha ammaanka ama militariga Turkigu sanadkii 2011 saldhig 2 kiiloomitir oo lagu tababaro 10 kun oo ciidan oo ay ku baxday 50 milyan ayuu ka sameystay magaalada Muqdisho ama Soomaaliya ujeedada uu sameeyay waxay markaa inuu ku tababaro ciidamada kala duwan markaa uu ku sameysto marka arrimo ammaan baa jira militariga kala duwan markaa haday tahay kuwiisa oo markaa uu ku tababarayo haday tahay markaa hubkiisa uu doonayo inuu suuq uga sameeyo Soomaaliya ku iibiyo hubka soo saaro iyo hadii uu doonayo markaa inuu Soomaaliya ka caawiyo arrimaha ammaanka ay kamid tahay in la dagaalamo kacaawinta al-shabaab ee dalka laga saariyo waxyaabaha la midka marka dooda qoraaga aniga soo koobaya waxa weeye saddex istiraatiijiyad buu kale yahay dhinaca ammaanka inuu markaa saldhigiyo waxyaabaha la midka la sameysto iyo inuu arrimaha dhaqaalaha oo kale inuu faa'iidada uu ku yeesho maadaama wax soo saar badan uu jiro dhinaca istiraatiijiyadu ay ku yeesheen waxa isweydiin mudan dhinaca markaynu eegno waxyaabaha uu Soomaaliya ka qabtay iyadoo waxa kamid ah dekada magaalada Muqdisho iyo airportka magaalada Muqdisho labadaba shirkad Turkiga ayaa xukunta oo markaa dhaqaaleega ay qayb weyn oo la xad ka qaadatay iyadana marka arrinta isweydiinta mudan waxay tahay yani arrimaha noocaas oo dhan Turkigu uma sameynayo arrimo kan xida ama arrimo markaasi wax u qabasho oo bini'aadanimo ah laakiin waa arrimo ay ku jiraan dara siyaasadeed inta badan waxa la yiraahdaa
sida aynu ku sheegnay buug hore aynu gorfeynay ahaa dead aid ama ahayd gargaar gudnimo ama cad quudwe waxaynu ku macnaynay waxyaabaha loo yaqaano aidka ama gurmadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha casriga la isku gumaysto ee uu dalka kale markuu wax siinayo ku gumaysto isagoo soo dhex maraya marka arrimo gaar ahaaneed ama interest u leeyahay uu sii dhex maraya inuu ugu dhunto marka arrimo bini'aadanimo ama arrimo gargaar ama arrimo la mid ah kuwaasi waxyaabaha markaasi hadda siyaasadda caalamka lagu kala fushado way qoraaguna markaa uu tilmaamaya anigoo soo ururinaya buugu muhiimad badan buu u leeyahay si arrinta dadka siyaasadda la xiriira dadka barta dadka daneeya iyo dadka arrimaha noocan markaa doonaya inay wax ka fahmaan dalka iyo waxyaabaha laga wado waxaan ku soo koobaya markaa wax kasta oo markaa dalu ka qabanaya dal kale arrimo waxa jira siyaasaddu ka leeyahay buuga waxaan jeclahay inta ku soo koobo intaynu buug kan lamid ka kulmi doono waxaan kaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adoo suuqiyo sayla joogiyo adoo subaxii salaadaha hore sariirta hurdada siru jiifoon weli sara kicin saqda dhexe iyo duhur saafiya saacadoo idil sarif lacageedoo ku saacido oon ku siri haynsamow boodhari hayse seegina yaa salaam boodhari money exchange